Fahad iyo Farey waa fadhiisho looga faaloonayo fagaarayaasha Facebook xilli Xasan Sheekh Maxamuud uu gacan ku gamba ka yahay kooxda farmaajo xilli loo diyaar garoobayo in khamiista bari ay dhacdo caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayay kooxda dacaayadda u qaabisan madaxweynihii hore farmaajo bilaabeen olole ay ku doonayaan inay ku abuuraan hadalhayn baraha bulshada ah si hoos loogu dhigo hadalhaynta caleemasaarka. Kooxdan abaabulan waxa ay toddobaadkii hore ku dhawaaqeen olole ugu magac dareen mahadsanid madaxweyne, kaasoo ay sheegeen in guri abaalmarin ah ugu dhisayaan farmaajo isla markaana lacag loogu ururinayo taageerayaashiisa. hase yeeshee ujeedka rasmiga ayaan ahayn dhisidda guri iyo abaalmarin madaxweyne midna. Farmaajo lacag la'aan ma hayso, umana baahno lacag shacabka laga ururinayo sababtoo ah intii uu xafiiska joogay in ka badan 1.7 bilyan ayaa xisaab xir la'aan uga maqan, halka uu sanad kasta hanti dhowraha guud uu soo saarayo malaayiin dollar oo aan la aqoon waxa loo isticmaalay, waana milyaneer boobay hantida dadweynaha 5 sano la soo dhaafay. hase yeeshee ujeedka loo abaabulayo taageerayaasha ayaa ah in la abuuro hadalhayn lagu qarinayo caleemasaarka isla markaana shakhsiyaadka ay ugu horeeyaan Cali Yare, Cabdirashiid Duqa iyo Cabdi Xirsi ku dhacayaan lacagta shacabka si la mid ah taageerayaashii madaxweynihii kontonishanaad ee Mareykanka Donald Trump. Dadka falanqeeyaasha Soomaaliya waxa ay sheegeen abaabulka taageerayaasha ee ka socda baraha bulshada iyo kulamada ka dhacaya Twitter Space oo lagu laray wareysiyada ay bixinayaan laba ka mid ah shakhsiyaadkii galay gaboodfaladii ugu badnaa 5 sano xafiiska uu joogay farmaajo, kuwaas oo kala Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Farey oo aan noloshoodii hore wareysi aan bixin. waxaa la baahiyay wareysi laga qaaday Farey oo ka mid ah dadka ku eedeysan kiiska Ikraan Tahliil, halka wareysiga Fahad Yaasiin lagu soo aadiyay maalin ka hor caleemasaarka si indhaha bulshada meel kale loogu weeciyo. waxay labaduba wareysi ay ka sinaayeen su'aalo tifaftiran oo la xisaabtankiisa xaafadu ay ka maqnaayeen. maamulka Xasan Sheekh hadda majaraha u hayo waxay ahayd inuu la xisaabtamo shakhsiyaadka eedeysan ee Fahad iyo Farey ugu horeeyaan, sidoo kalena waxay ahayd inuu ka hortago shakhsiyaadka bulshada marin habaabinta ee Cali Yare iyo Cabdirashiid Duqa ugu horeeyaan sida ay qabaan dadka faalleeya siyaasadda. nasiib xumase isagoo oo u muuqda gacan ku gambad isagoo aan la caleemo saarin ayaa laga horkeenayaa shacabkii uu madaxda u ahaa. farmaajihii kooxdiisu waxa ay u diyaar garoobay inay laba jibaaraan marar habaabintooda shacabka, indhaha bulshadana ka weeciyaan caleemasaarka madaxweynaha, halka Xasan Sheekh uu gacan gambad ku yahay filada. waxaa caasimadda Soomaaliya Muqdisho ku soo qulqulay wafuud caalami ah kuwa heer gobol oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu wado in maalinta bari oo khamiis ah uu ka qabsamo magaalada Muqdisho. garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayay ka socotaa soo dhaweynta martida ku soo qulqulaysa Muqdisho, halkaas oo ay ku soo dhaweynayaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo horkacayo wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuura, wakiilo ka socda ururka jaamacadda Carabta, dowladaha Cumaan, Indonesia, Hindiya ayaa ka mid ah wafuudda timida Saakay, halka xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka mid ah baarlamaanka Kenya iyo xubno kale oo la socday Nairobi dhankooda ay ka soo xaadireen munaasabadda. madaxweyne ku-xigeenka South Sudan Taban Diangaya ayaa dhankiisa soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo ka mid ahaa madaxda dalalka gobolka ay ka qayb galaya munaasabadda, waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. dhanka kale wafuudda soo gaadha waxaa ka mid ah gudoomiyaha ONLF Cabdiraxmaan Madey iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa sidoo kale soo gaaray caasimadda xilli dhowaan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxba kama jiraan ay ka soo qaadeen go'aankii xukuumadda Xasan Cali Kheyre ONLF ugu aqoonsatay urur argagixiso. dhanka kale madaxweynayaasha maamulada Jubbaland Axmed Madoobe, maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe, kan Koonfur Galbeed Cabdi Laftagareen ayaa ku sugan Muqdisho, halka saacadaha soo aadan la sugayo in Muqdisho yimaadaan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqora.